عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا channel كأم بتكنولوجي أي كبح عشرة ICT وأنا محمد علي بلال وعهور إنه وسعودي عشرة الله يقان كورس الله يقان Windows Server 2019 waxaan u baahanahay maanta in aynu sameyno hore ayaan waxaan usoo sameynay wax la yiraahdo domain controller sidee domain controller aan u join kareynaa domainka aan sameynay markii aan tagno serverka kuma serverkani forest domain controller kana oo noo horeeyay domainkana waa onbit.local okay marka waxaan u baahanahay in aynu ku soo join kareyno serverka kan waxaan ku shubay serverka kan ayaa install creation sida loo install kareeyo serverkana hore ayaan usoo install kareynay waana clientiga kana isku si ayaa loo install kareeyaa marka waxaan u baahanahay inaynu ku xirno domain controller kan inaynu kan ku soo xirno ayaan u baahanahay okay marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay in aad network ka tagtid network waxaa ka doonaysaa in aad bedeshid DNS-ka ileen domain controller kan ayaa wuxuu noo yahay Active Directory iyo wuxuu noo yahay DNS labadaba wuu noo yahay marka in aad DNS-ka soo bedeshid ayaa u baahan tahay halkaa tagaysaa marka aniga waxaan siiyey .11.10 ayaan siiyey DNS-ka halkan aan ku xiray marka DNS-ka halkan ayaa kaga xiraysaa waxaana fiirinaysaa in ping inay isku sameyn karaan ping baa leedahay 110.1.1.5 oo ah Active Directory-gan iyo DNS-kana saa arkaysid uu reply buu noo soconayaa marka waa ka jaraysaa marka waxaad u baahan tahay oo kale in aad ku join garaysid sidee ugu join garanaysaa Active Server Manager-ka ayaa tagaysaa inta server manager-ka noo soo baxay ayaan tagaynaa marka onbit domain controller-ka halkan ayaan ku xiraysaa kan ayaan qaadaysaa onbit.local okay halkan markaad timaadid local server ayaa tagaysaa local server name-kaas ayaa noogu qoran work group weeye work group-kaas ka bedelaynaa marka work group-ka markaa ka bedelaysid change name domain halkan waxaa leedahay onbit.local marka onbit.local aad tirahdid halkan wuxuu ku leeyahay computer name iyo domain changes ku qor halkan waxaa leedahay administrator iyo 1abc123 oo ah waxaan gelinayo waxa weeye domain controller keeni weeyna marka okay ayaa leedahay okay welcome to onbit.local domain ayuu ku yiri okay baa leedahay marka waa inuu restart u diraa okay baa leedahay close baa leedahay restart now dan wuu isku apply gareynayaa hadeer domainka kan ayaan gelinaysaa passwordkiisa iyo administrative ahaan baa u galinaysaa marka client-gan waa tagaysaa isla sidii network baa tagaysaa open network ayaa leedahay waxaad tagaysaa isaga ayaa ku saarayaa properties ayaa tagaysaa properties markaad tagtid hoos baad tagaysaa no properties ethernet baa leedahay change adapter ayaa leedahay halkan ayaa bedelaysaa properties ayaa leedahay use baa leedahay 10.1.1.15 ayaa siinaysaa kan class C ayaa ka dhigaysaa 24/24 marka 10.1.1.2 ayaa leedahay halkan DNS-kan ayaa gelinaysaa okay baa leedahay waa xiraysaa marka markaad saa u xirtid waxaad u baahan tahay
in aad cmd aad tirahdid halkan waxaa leedahay ip config ayaa leedahay ip config waxay haysanaa 15 dns keena waxoo dhan daarabtid inaad ogaatid macal dns ka all ayaa leedahay sidaan u jeedno dns serverkan uu noogu xiran yahay marka cls ayaa leedahay ad ka baxaysaa waxaad tagaysaa this pc property marka tagtid waxaan u baahannahay inaan domain controlka ku xirno waxaa leedahay advanced system setting computer name change waa leedahay domain controlka halkan ayaa waxaa gelinaysaa onbit.local okay baa leedahay then waxaa gelinaysaa administrator naqalday yes okay baa leedahay administratorka waxaa gelinaysaa domain controller keeni ee server keeni koowaad first domain ahaa administrator waxaa leedahay abc $, okay baa leedahay welcome buu ku leeyahay then okay baa leedahay close restartina waa isagana keeni baa ku noqonaynaa okay waa galaysaa in aan ku joongarin ayaa fiirinaysaa server managerka noo soo kacaya waxaan sugaynaa intee server managerku noo soo kacayo then waxaan fiirinaynaa inaan domain controlka inaan kusoo wada xirnay then waxaan kasoo fiiri doonaa windows serverka kan ayaa waxaan kasoo fiiri doonaa active directory keena inay noo soo galeen because of active directory kasaan hore idinku soo sheegay waa database noo store garaya userska network resourcega iyo computerska aan idhi marka waxaan fiirinaa noo soo galay marka local serverka ayaa tagaysaa local serverka marka waa inuu domain keena halkaas noogu soo baxaa okay hawshan way noo dhan tahay halkan waxa weeye onbit.local windows server kana wuu soo staraya okay waxaad tagaysaa first domain controller keena ee dns keena iyo active directory noo ah ee noo weyna haddaan dib u fiirisid magaciisana uu yahay win server id uu yahay marka waxaad tagaysaa toolska tagaysaa computer users and management ee manager ayaa tagaysaa active directory ayaa tagaysaa waxaad fiirinaysaa inta computer ee kugu jiro meesha wayne onbitkii waa first domain controller keena weeye marka computers ayaa tagaysaa laba computer baa haysaa sidaa ujeedid labadii computer ee domain controller keena noogu joonkaraysan ayuu nasusay marka active directory keena wuu noo habaysan yahay wuu noo shaqaysan yahay waxaanu samayn doonaa in aan install karayno ku install karayno kan ka dhigno read only active directory inaan ka dhigno domain controller oo aan ka dhigno without global catholic iyo dns insha allah waa anigoo ah maxamed cali bilaal waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu